بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرنتن هذا الحياة هذا آد صوب حيس هدرتان مريكان كحدونا يا ها لعيه ترى بدنا إيران لقى فريز جري أما لقى حيري أنت عنا خفت أنت لقى هستي إنه ملاك الكوب بحيو وأيو ملاك الكوب بحنا مدمدا هذا لقى هلا نزلوا تاجينا already تيم أيالا دري وكان دونا أنت سبحان الله كان لنا حضان كلها كورن و JD Vance ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo Witkoff oo ninka hogaamiye wada hadallada Iran iyo lala yeelanayo bariga dhexe guud ahaan iyo Jared Kushner oo sadoga u yahay Israa'iil ragaasi u dhacday si ugu dhacday aan isu taagayna sidaas oo kale Trump qodobka loo wataa cusub wada hadallada Iran lagu soo dari doono qodobkaasi almuhim asana isu taagayna waxaan soo ku bilaabaynaa Kuwait way careysan tahay warqad ay waxay u dirtay qoladii la dhahay muxuu ahaa ikawada oo macnaha diyaaradaha boorada wax walba ku saabsan qolada xukunta ee dabcan caalamka oo dhanna ay ku midaysan yihiin sida UN oo kala ay warqad cabasho ah u dirtay warqad waxa ku qoran Iran waxay ku soo xadgudubtay dhowr mar hawadeena booradeena hadeer santii ugu dambaysan boorkeena waxay ku sameysay wixii adduunka oo dhan arkay arintaasi ma ahan arin ay tahay in si toos ah ma tartiib ah man yani normal ah loo daayo oo looga aamuso waxay leedahay Iran ku tilmaamay Kuwait ay ku tilmaamaysaa marka arinta waxay doonaysaa in talaabo looga qaado Iran maxaa yeelay waa i'tidaa'aad mutakarrira yani waa xadgudubyo soo laabtay maxay qaban kartaa marka la fiiriyo arintan Iran waxay soo istaagi doontaa self defense waa isdifaacini ana waan noo soo xadgudbay waana soo weeraray marka almuhim arintaasi ayaa jirta dhinaca kale Trump hadal cajiib ah maanta adiga soo qoray wuxuu leeyahay horta waxaan doonayaa Iran wada hadal aan kula jirno qodobo muhiim ah oo ka maqana jiro leeyahay oo waaweyn waliba waxa kamid ah in Iran qodobka loogu daray uu noqdo waxa mamnuuc ka noqon doona Iran inay soo iibsato hubka nuclear-ka Koreada waxooyana ka iibsan karin Russia ka iibsan karin China ka iibsan karin cid ay ka iibsan karto malaha waxa ku jira dabcan inaynan samaysan soo maahan laakiin okay anaga ma samaysanaa ku dhihi karaa aniga waa soo iibsanaa alaabtaasi tooriyada qaabka loo isticmaalo iyo waxay leeyihiin ama sixada hadalku u qoreen uriidu idraaj band في اتفاق يمنع إيران من شراء أسلحة نووية بندقاس إن لو سو دارو أيام بحضرنا يعني إن لغو هوس بخيو أيا طبعا إي كبخايان وين الأعضاء عاديا هذا هجيسك كما جيرين يعني إنا وحسو إبسلين هجيسك waxaa ku jira he in ana samaysanin mana ana samaysanin waa kaasa soo baarta kaale arka waa dhigi karaan Soomaa alati hadu xala keenay yani waa inayna xataa macnaha soo iibsan المهم wax weyn ma ahan marka la fiiriyo Iran inay arintaasi ogolaato laakiin waa arin aanan hore ugu jirin wada hadalada laakiin hadda lagu soo daraayo macnaha ma yeeli doonta Iran waa arkayna waqtiga sheegi doona kulay oo maanta waxa Iran gaaray wasiirkii arimaha gudaha ee Pakistan asagoo dhanbaal u wada ku wareejiyay sheegay wasiirka arimaha dibadda Iran Abbas Araghchi waxaan dhanbaalkaasi dabcan loo dhiibay hogaamiyaha sare ee Iran waxa dabcan soo baxay hadeertaan haday ilan lama ogeyn maxaa ku qornaa laakiin hadda akhbaar la soo dusina waxay sheegaysaa in laga rabo hogaamiyaha Iran sida ugu dhaqsiyaha badan inuu arinta u soo afjaro yani Mareykankii haddaan si kale kugu dhigo ayaa waxay leeyihiin please waa soo dahdeen baasha mar walba nagu soo daahaysan naga dedejiya hal mar aan iska dhameeyna camal yani Iran si kale haddaan kugu dhigo loo baryaaya taana waa taa dhinaca kale waxa soo baxaya arin horta weyn shalay ay arintan soo baxday waxaana ay Pentagon-ka ka dhigeen the highest level waa sidaas oo the highest level macnaha Israa'iil in ay jaasuusaysay dhageysanaysay madaxda Mareykanka ayaa xaaladaas waxa laga dhigay xaaladii ugu sareysay mid ka sareysa ilan jirta hadda waxa laga dhigay Pentagon said to raise the threat level on Israel aspiring to critical laga dhigay macnaha waa halis argagax oo weyn meeshii ugu dirneed oo critical marka la dhaho inta badan wax weeyaan ficil la sameeyaa xaalad hadii critical lagu dhaho yani
maraykanka wuxuu ku qasbanaya haddeertan isaga inuu nala fadhiisto in wax alla wixii ay ogaadeen in ay la dagaalamaan ay qabtaan maxaa yeelay way dhaceen un ma ahan caddeenaa lahaaya in raggan saddexda ah ee Jared Kushner iyo Witkoff iyo JD Vance ay ku jireen bal ay ahaayeen ragga Israa'iil ay dhageysatay teleefanadooda bal ka warrama Israa'iil oo madaxweyne ku-xigeenkii Maraykanka jaajuusaysa oo dhageysanaysa teleefankiisa oo tallaabo iyo xaaladii iyo wax alla wixii ay dad kale kula hadlo la soconaysa almuhim taawata waa arrin cajiib ah okay aanu imaano arrintan run ahaantii qosolka leh la yaabka leh lama filayn maraykanka treasurygiisa ama wasaaraddiisa maaliyadda waxay soo saartay akhbaar waxay leedahay we will make Iranian assets available to Gulf macnaha asadyada ama raasumaalka Iiraaniyiinta ay leeyihiin waxaan u diyaarinaynaa ama minay u diyaarsan available waa diyaarsan ha oga dhigaynaa waa wadamada Gulfka ama khaliijka rebuilding iyo repairs for future damages iyo sidaas oo kale past damages wax alla wixii hore u dhacay ee dhibaato lagu sameeyay ee burbur ah iyo wax alla wixii hadda dhici doona ee dhibaato lagu sameyn doono waa future and past damages ayaa dabcan loo dhigayaa in lagu sameeyo arrintaas miyaa no the treasury also directed a team to assess costs bal arrintaa ka war bal iska dhaafe yani waa la sameynaa already teamaba la sameeyeyba teamka muxuu ka shaqeynayaa inuu soo assess gareeyo oo soo qiimeeyo wax alla wixii damage dhacay the damage already maxaan ku dhahay inflicted on Gulf allies macnaheeda si ka haddaan kugu dhigo yani Iiraan lacagtay ku doodaysay dhahaysay annaga lacagteena weeyaan waa in noo soo fasaxaa waa tuugnimo khiyaano in maxaan ku dhahay annaga sidaan lagu sameey kada ay dhahaysay ayaaba halkan waxa soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda yani wasaaradda maaliyadda Mareykanka waxay taagan tahay macquul ma aha lacagtaasi Iiraan ma qaadan doonto waxa la siinaa khaliijka la siinaya macnaha say kula tahay adiga sad aragtaa Iiraan qodobada dooda laga wada hadlaayo ee mucaqadka ahaa ee aadka loogu dhibanaa waxaa ka mid ahaa oo markii dambe Mareykanka ogolaaday Iiraan waxay rabtaa in ay hesho lacagaheeda cunaqabataan lagu sameeyay oo xaq darro ah lacagteena la hakiyay oo meelahii ay ku kala jirtay 12 bilyan inay helaan fiiha 12 bilyan ee hadda qadar ay ahayd inay ka soo qaadato xogaa tan aftirka waa la hakiyay arrimaha oo dhan hadda jaa waxa soo baxaya no khaliijka la siinayaa Kuwait Imaaraat iyo yani kada المهم وانت قدام بس انت سكوسو كويس السلام الله عليكم ورحمه